saaxiib meel maalin wanaagsan meel ka soo joogtaan sheekadan adila wadaagayo waa warbixin quus ah oo xanuun badan oo taabanaysa qalbiga qof kasta Soomaaliyeed ee damiir leh meeshuu joogabaha ku noolaade gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir taasi oo ah wax aan la aqbali karin isla markaana aan maskaxda bini'aadamka iyo qof walba damiir leh aysan qaadan karin sidaas darteed waxay fariintan ku socotaa madaxda dawladda Soomaaliya ee u dhaarata wadankan oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse xukuumadda iyo guud ahaan hay'adaha dawladeed ee dadka Soomaaliyeed u adeega ama u khidmeeya si gaar ah waxa fariintan u socotaa rajaynaya inay gaari doonto wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed haddaba maxay tahay quusta xanuunka badan ee aan rabo maanta inaan la wadaago oo aan hortiina u soo istaagay sida aad ogtihiin maalintii shalay intiina badan baraha bulshada waxaa lagu baahinayay shil xanuun badan oo ka dhacay mirnaayada degmada Cabdiasiis halkaas waxaa ku geeriyooday 3 haweeney ah waxaa dhaawac soo gaaray 2 kale dadka geeriyooda dhammaan waxay ahaayeen hal qoys Allah u naxariisto 3 geeriyootay ee 2 dhaawacana Allah caafiyo sida caadiga ahayd markii meedku uu dhacay eheladu waxay ku qasbanaadeen bal in ay marsiyaan habraaca xaqiijinta dhimashada maadaama shil uu dhacay loona baahnaan karo berito in la xaqiijiyo ama la diiwaan geliyo si loo diiwaan gelin waxa qasab in hay'adaha dawladda ee sharciga u leh in la marsiyahay eheladu waxay geeyeen xarunta CID-da kadibna waxaa loo gudbiyay sida caadiga ahayd isbitaal Madiina oo ay tahay halka dawladda Soomaaliya ka qaadato warbixinta la xiriirta xaqiijinta kiisaska dhacay ha noqoto dhimasho dhaawac nooca uu yahay iyo wax kasta la xiriira xaaladahaasi oo hay'adaha garsoorku ay si gaar ugu tirsan yihiin marka laga hadlayo CID-da xaar ilaalinta iyo maxkamaduhu eheladu waxay qaadeen 3 meyd oo waxa la geeyay isbitaalka Madiina si halkaas loogu marsiyo habraac oo u helaan warbixin la xiriirta in dadkan ay ku geeriyoodeen shilka gaari oo la wada ogaa oo aan ahayn wax qarsoon laakiin markii isbitaalka Madiina ay geeyeen kooxda caafimaad ee xilligaas gacanta ku qabatay waxay ku wargeliyeen ehelada in loo baahan yahay in 3 meyd la soo saaro iskaan waa dad dhintay marxuumiin ah geeriyooday Allah u naxariisto laakiin waxa lagu yiri saan u cadeyno waa inaad soo saartiin iskaan ehelada iyo dadka ay arintan saameysay oo aan kamid ahaa ayaa waxaan weydiiyay kooxda gacanta ku haysa hawsha qofkan inuu dhintay shil gaari ku dhintay dadkani waa u jeedin waan ognahay dadkii dhibka geystay hay'adaha amniga gacanta ku hayo maxay tahay sababtan ugu baahan iskaan soo saartiin oo aan leedahay dhimashada cadeynayna ugu dambeyntii waxay yiraahdeen haddii aad rabtiin habraaca ama warqadda cadeynta meydka anagu waxaan u baahanahay in la saaro iskaan oo aan ogaano gudaha waxa ka jira ma jaba jira adigu dooda la xiriira caafimaadka oo aan fahamkiisu aanan aad xog badan uga hayn karin waxaan ahanay waxay kale ku doodan ay noo sheegeen in hay'adaha cadaaladda oo xaraanta iyo CID-du iyo kamid tahay maxkamaduhu ay uga baahan yihiin in sababta la cadeeyo oo tafaasiil sida darteed dhakhtarku uusan soo qori karin ilaa iskaan soo saarno doodar kadib eheladii waxaan isla qaadanay in iskaan la soo saaraahi maadaama ay tahay mid waajib noogala dhigay laakiin ay aad u saameynayso qof walba meesha joogay oo la yiri meydkaaga iskaan soo saar oo soo caday dhimashada iyadoo loo jeedahay inuu ku geeriyooday shilka gaari xanuunka badan ee dhacay markii la isku diyaariyay in la qaado meydadka oo iskaan la soo saaraahay si aan ula macaamilno isbitaalada kala duwan ee magaalada ku yaal ayaa haddana waxaa intaasi ka xanuun badnayd oo ay noo sheegeen in la geenayo isbitaal lagu magacaabo Sahan Diagnostic Hospital ama xarun caafimaad oo aan la geyn karin meel kale haddii aan geynahina warbixintaas aan la qaadan karin ama aan lagu kalsoonaan karin sidaas darteed isbitaal Madiina iyo isbitaalka Sahan uu yahay xiriirka labadooda oo u dhaxaya oo u xiran qof kasta laga diray Madiina in la geeyo xarunta lagu magacaabo Sahan Diagnostic wadada kale xanuun badan oo aan la leeyahay in lagu yiraahdo haddii adigu iskan ku yaalo isbitaal leedahay kaaga ma rabno ee waxa keenaysa midka anaga aan rabno kaas oo ah Sahan Diagnostic Hospital labada isbitaal waxa meeshaasi ka cad in xiriir wada shaqeyn oo ka dhaxayo oo adeega loo xiray isbitaalka Sahan isla markaana isbitaal Madiina qof kasta taga ama ha noqdo marxuum la geeyay oo qof meyd eheladiisu geysteen ama qof dhaawac in loo diray xaruntaasi lagu magacaabo Sahan Diagnostic iyadoo nagu adag tahay aadna u xanuun badan tahay eheladuna ay ku kala qaybsameen ayaan waxaan geynay meeshii Sahan ahayd oo noo tilmaamay Sahan markaan tagnay waxay noo sheegeen in meyd kasta 3 haweeney ah laga rabo lacag gaaraysa $300 sida aad ka arki doontaan warqadda rasiidka oo lacagtan ku bixinay oo noo jireen
dood adag ayaan ka galnay waxaana markii dambe ay naga reebeen lacag $200 taasi oo ka dhigan in marxuum kasta laga qaaday $225 sida ku cad rasiidada aad arkaysaan ee warbixintan maantii shalay markii aan dul istaagay oo aan ku qasbanaado bal in xogtan aan soo bandhigi doono inaan xogtan helo markii ay hawsha noo qabteen oo la saaray saddexdii haween Allah u naxariistay marxuum iskaanka ayaan ku dhahnay nasiiya warbixintii natiijada soo baxda si aan ugu laabano isbitaalka Madiina markii waxay noo sheegeen in warbixintan ehelka la siinin oo dadka lala wadaagaynin sidaas darteedna muhiim ay tahay inaan ku laabano Madiina oo warbixinta laga heli doono sidaas ayaan uga tagnay xaruntii noola diray ee adeegan gaarka iyada loo xiray oo isbitaal Madiina ay waajibka nooga soo dhigeen haddaba sheekada xanuunka badan oo aan ka aamusu waxay tahay in isbitaalka Madiina oo dawladda Soomaaliya maamusho isla markaana hay'ad caalami ah oo lanqaartaas ay taageertahay oo maanta qof Soomaaliyeed oo ku xujeynayo in isbitaal gaar loo leeyahay oo ganacsato iyo dad sheeray ay leeyihiin ay waajib ku tahay in loo diro lagu qasbayo inuu iska soo saarahay iskaan haddii uusan iska soo saarinna warqadda riboodka cadaynta dhakhtarka isticmaalaan hay'adaha cadaaladda sida xaar ilaalinta CID-da iyo maxkamaduhu aan lagu siin doonin meesha waxaa ka muuqanaysa marka laga yimaado ciqaabta labada isbitaal ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan ku dhaqan gobolka Banaadir oo u muuqda in maanta meedkoodii laga bixi mushtari ama lacag laga sameeyo in hay'adaha cadaaladdu aysan malaha xog badan ka haynin in isbitaal Madiina oo iyagu la siiyo awood dawladeed darteed in warqadda rifaatada iyaga waajib looga dhigay bulshadan ku dhan gobolka Banaadir meel kasta ku nool yahay in iyaga ay si qaldan uga faa'iideysanayaan magaca dawladnimada taasi oo adeegii loo xirayo isbitaal gaar loo leeyahay ama xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay farintayda waxay ku socotay madaxda qaranka Soomaaliyeed waxay si gaar u taabanaysaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Asad Abdullaahi Diyaano iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Ali Xaaji waxaa rajaynayaa hay'adaha dawladeed ay ku socoto farintan oo sad arkaysaan dhacdo xanuun badan oo aan dul istaagay oo aniga saameysay isla markaana ugu bigu ahayd ama kaagna ugu noqotay oo inaad la wadaagahi waxaan rajaynayaa in labada isbitaal aan xusay ee Madiina Hospital iyo Sahan Diagnostic ay ummadda Soomaaliyeed qaabtaas adag oo ah in beedka laga mushtarahi ama laga ganacsadahi ay soo ilaa doonto haddii rabbi idmo aad baan u mahadsantihiin saaxiibayaal sheekadan ayay ahayd mid aan la wadaagayay oo habeennimadii xalay aan idin balamiyo waan ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan rajaynayaa inaad gaarsiin doontaan ummadda Soomaaliyeed si wax loo qabto